ودستورك دستوركeenna in isbedel lagu sameeyo qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah ee dalkeena dastuurkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا channelka La Waraad kala soo kartaan YouTube barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay dastuurka Xasan Sheikh ya Xasan Sheikh waxa uu dastuurku soo sameeyay ya warka kaas ayada meesha lagu soo aansay xildhibaanada labada aqal aan isdhageysan oo idinku aad u mahadsan koormka xildhibaanada soo xaadiray ee fadhiya ee golaha shacabka waa 212 xildhibaan xildhibaan diiday ma jiro xildhibaan ka aamusay ma jiro 212 lana aqbal ku odaysay waana ansax sidaa daraadeed dastuurkii waa ansax dastuurkan dastuur Soomaaliyeed ma dastuur Soomaaliyeed wuxuu noqonayaa markii dadka la hor keeno oo dadku ay doortaan oo dhahan may ama ha inta ka horeysa waa dastuur Soomaaliyeed ya marka waxaan dastuurku sheegaa waxa way waxa loogu talagalay niman oo shaati tolanaya soo jeedaan soo musawirka Amin Arts soo jeedaan marka meeshaas waxa way waxaas baa ka jirta ya marka waxa way inta waxa ku arkayna barnaamijka maanta waxa dastuurku sheegaa khaladaad badan ka buuxda khaladaad badan baa ka buuxda waxa way qodobooyinka qaarkood ayaga is khilaafaya ya marka hadda u fiirso waxa ugu horeysa oo la yaab kale waxa weeye waxaan oo golaha shacabka loogu yeeray tuugada waxa weeye wixii oo dhan waxa weeye nusaac gudaheeda ku sameeyaan nusaac gudaheeda isla markii waa lagu tuuray boobsiis ya marka waa kaas dad la soo gatay weeye dad waxa weeye nin baa gob ma daam qashida kuwaasa aan dastuurku sheegaa waxa weeye hal mar wax yar aan hal mar aan waxaan macna lahayn baa laga bedelay hadda ka soo qaad kuwa guddiga oo loo xil saaray mid bay keeneen marka intaysan aysan geynin waxaan oo golaha shacabka loogu yeerayo wax yar bay ka bedeleen marka waa kan wixii xaqiijinayso aan jidaan marka waa kana leenkan bay keensadeen waxa guddiga lagu sheegayo leenkan waxa way waa kan la hor keenay golaha shacabka marka wax yar baa laga bedelay marka waxa way processka oo lagu soo sameeyay waxaan dastuurku sheegaa waxa weeye waqti badan oo isticmaalin si boobsiis lagu sameeyay hadana process xiran baa lagu sameeyay marka waxa weeye marka waxaan dastuur lama dhigi karo marka golaha shacabka waxaan dastuurku sheegaa 28 Maash bay heleen waxa sanaha xaqiijinaya wakaalada wararka ya laba maalmood ka bacdina waa kuwana ayagoo wixii u odaynay oo adkiibsiyaan marka waxa laba maalmood kaliya bay haysteen qof fiiriyana male hal qof fiiri male ya hadana fiirin kaliya dad hadana waxa ku tusaysaa kulligood wada odayeen marka waxa ku tusaysaa baashaas inay dadkan dad lacag soo qaato marka baashan khaladaad badan baa ka buuxa hadda aan ku arkeen inta hal qof oo soo hadal qaada ma jirto jawaabkan bu video xaqiijinaya nala fiirsado 253 isku darka labada aqal aan meesha ku fadhina koorumkeeni afartii cutub qof diiday ma jiro kullu waa la wada ansaxay waa la aqbalay sida daraadeeda waa ansax ma xaadiriintii waan ka gudubnay waxaan u gudbi doonaa aad u maasantiin hay halka waxa way khaladaad badan baa ka buuxa ya marka wixii hadii aan si fiican loo fiirin oo si dhaqso lagu soo sameeyay waxa way khaladaad badan baa ka buuxa marka inta wax ku arkayna qodobooyinka qaarkood ayaga isku soo horjeeda oo isbuurinaya waxaan dad professional waxay soo sameeyaan ma marka waxaan hadii ay soo sameeyaan dad professional oo xeerarka yaqaana oo dadku daadada oo la soo hor dhigo dadkii dhan oo ku shaqo leh dastuurka markaas waxa weeye wax shaqeynaya bay noqon lahayd oo sax ah ka soo qaad waxaan dastuurku sheegaa afar cutub kaliya way soo jeedaan aad buu yiri ya waa brochure waxa way warqadaha waa aragtay alaabaha lagu haysiyo kale oo wax yar lagu soo qoro kale way waxaan dastuur lama dhigi karo waa falxamo way hadda ka soo qaad dastuurkii hore oo ku meel gaarka la bedelay baab ka badnaa hadda u fiirsado kii hore la bedelay 15 October ya hadda ka soo qaad wadanka Jarmalka kale dastuurkiisa 11 October soo jeedaan 11 October laakiin soo qodobooyin tiro badan buu leeyahay marka dhowr boqol oo page way marka dastuurka Xasan Sheikh 46 page kaliya way
يا وركا صحما وركا حالكاس ku tusaysaa wadankan inuu meel xun laga tuuray waxa arkayna khaladaad badan ku jira dastuurka Xasan Sheikh يا دستور حسن شيخ خلاص بدن بقى بوح وحي أيقا إسبوريني مركوا كم به تعرفتان إذا كنا عندي كواركتان لينكي هوس بالنكوري ده مركوا لن تصير هذا خلافات بدن بقى وحي أيقا بسخلافة واو كم به عندنا اللي تصير واكنا سمع جدا بيج كلاتين سجلات هذا في سلطان قضاء كلابات هو شغال لي هاي عريمها عرورته مركوا دايان الماء كوغان جارا توني سديد waxaa wax diinta soo jeeda way ya hada u fiirsada qodobkii burinayay waxaas noo waa kana inta ku qoran yahay soo jeedaan marka soo jeedid qodobka labaad qaybta afraad waxa inta ku qoran lama soo saari karo xeer aan waafaqsanayn shariicada islaamka soo jeedaan marka wixii ay isburinayo isku soo horjeeda wax kale la yaab leh oo khalad kale ku jira waxaan dastuurku sheegay waxa weeye meelaha la dhahay wadankii waa wadan jamhuuriyad dimuqraadiya meelana halahay waa wadan oo ku dhisan waa wadan oo dawlad ku dhisan wax la dhahayo awood qaybsiga marka waa kuma xaqiijinayso aan jidaan qodob koowaad waa kana ku qoran yahay qodob koowaad qaybta labaad taala Soomaaliya waa jamhuuriyad dimuqraadiya ah way la soo jidaan waa kana qodobka saddexaad qaybta toddobaad waxa la dhahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan tahay مبادئ أساسية أول قيب سيجا نظامك. هالكلام اللي رعداديه ما ماشي ديمقراطية بقى جرته مسا أول قيب سي بقى جرته بركوالي بقى واحد قبله أو خلال بدن ضغني بقى قبله واحد صفة عن لوصل السمين وياه. أنا حكلا لا يابك له وحوي واحد دستور كشجع حسن الشيخ أصاب وهريه أو بريه بوحي يا مركز نلفي صدا قابك إن كوبات قيب أفراد سنة جدا مركز أنت حقوقنا وحاربا in qof ama qayb kamida shacabka jamhuuriyadda ay sheegato ama la wareegto xaq lahaanshaha gobonimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ama isticmaalkeeda si gaar ah ya marka dawladda maanta waxa lagu sheegay waxa noqday reer Xasan ay leeyihiin marka waxa ka dhiman la magaca in la bedelo Xasan laan loo bixiyo marka normal ahaan waa kan sharcigiisa ku qoranta مونو سمين مركز الدستور كان واحد لوش شيء وحوي وأصلا ما له كسر حريقتي بقى كوا إنه أصلا وبرنيه كل اللي يابله حوي قاضي كفرتين لحد بعدنا بحيه كلا قرنت وحسن شيخ وأصلا لفتي سبرنيه سمع جدا يا مركز سأنتو جدا قاضي كفرتين لحد غير طلبات وحقورن هركست الدولة ده وإنه نقضي مثل وفرينه ولا دنيا يا مركز الدستور كان واحد دستور كشيء لفتي مركز السميني وحفران ما هين وحلو دنيا ما هين دواء وكمب أسرع بسبورين يب تحكي لي نرى عدديه مركب ماشى شات على طولنا يا مركب عن دستور معها شرعنا معها يا مركب ده كسوق الصومال مركب حرمنا قاعدين نسي دستور بالوسمي دستور كي مركب الوسمي ده كي بالهركان سبته الدستور ده بحث كله سياسي ملا حسن شيخ ملا يا مركب دستور كا أو الصومال مركب حرمنا قاعدين نسي طور شباب قبطي dadkii baa la hor keenay oo marka hal dhahay dadkii su'aal simple ah weeyay hal dhahay dastuurkan ma aqbalaysaan maya maha marka natiijada doorashada xilligaas la qabto kaasa doorashada hal qabtay 20 June 1960 marka dadkii waxa weey dastuurkaas 90% baa aqbash marka dastuurka Xasan Sheikh waxa weeye wuxuu noqonayaa dastuur Soomaali leedahay hadii dadkii la hor keeno oo marka ay dadka kala doortaan inay aqbalaan inaysan aqbalaan laakiin inta ka horeysa دستور ما مركز حن وحوي مركز لسه سمينا بروسيس حيران بلوس سميه وحوي وحو قف شخصي وطوي هذا أنا أجي دستور لفتيس أجي أبوه رأي وجبينيه مركز سأل حلقة اللي ذين رعادة ديو أرين كل اللي يابلو حوي دور بلاد كور راح نسمينا برنامج ولو هذا حشيس وحسن شيخ ولسه قالي كوانا ده إيس أفريقيا كوميونيتي يا مركز مصور كواكاس أصوب حشيس كلسه قالوا سوسيين دستور كإيس أفريقيا كوميونيتي مركز dastuurka East Africa Community waxa kamida oo ku qoranta wadankan haduu heshiis uu la galo East Africa Community marka waxa weeye wadanka oo heshiiskaas kale wuxuu automatic ahaan u aqbalay inuu hirgeliyo xeerarka oo arrimaha bulshada iyo arrimaha xuquuqul insaanka East Africa leeyihiin East Africa Community leeyihiin inay ka shaqeynayso
marka halkaas ayaga sharcigooda waxa ku qornaa in ay dadku ay xor noqonayaan in diinan islaan ahayn lagu fidin karo meel walba yaa marka laakiin dastuurka Xasan Sheekh waa kana yaa wuxuu inta ku soo qortay qodobka labaad qaybta afraad waxa weeye waxa ku qoran inta lama soo saari karo waxa ku qoran diinan ahayn islaam laguma fidin karo dalka Soomaaliya dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka wixii dhan loo raacay waxa wadan ka shaqeynaya heshiis kula soo galay shalay waxa la shaqeynaya dastuurka marka waxa weeye meeshan wax walba la saxiixay marka meeshan waalid baa ka jirta marka waa kan dastuurkii oo shaati la tolanayo runta ah yaa dastuurkan waxa loo sameeyay in shaati lagu tush Xasan Sheekh uu talagalay inuu meeshan iska fadhiyo weligiisu ka keen si Ismaaciil Guuleed kale aka soo jeed koornada fadhiyo mutanta tolay marka waa ka buuxi waxa la iska dhahay ma waa ka dastuurku soo sameystay qodobadii oo lan tusayaa idinka indhiin ku arkaysan Soomaaliland marka qodobkooda 21 oo dhaya in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inay ka qayb galaan arrimaha siyaasadda dalka yaa inay ka mid ayna samaysan karaan xisbiyadooda oo marka xor yihiin Soomaaliland qodobka wuxuu qoran qodobka 21 qaybta koowaad haddana qodobka 5aad waxa ku qoran in uu dadka lagu khasbi karin in dadkii ay ku biiraan waxaysan rabin ka soo qaad xisbiya aysan rabin oo kale yaa laakiin se waa kana ايش دب كجرت واحد دب وين ما أنت هرتاج وحن ولا شعب لو يريو وهواي وحن بي أقبلين يا واكن وفرصة problem هو يقدر كنت أفراد قيد ثلاث ما جدا marka wadanka waxa la dhahay saddex urur oo siyaasadeed kaliya baa ka shaqeynaysa yaa marka wixii waa la isku adist yaa marka kuwaas galay kuwana halkaas waa galay marka siyaasadii waa la koobay dhowr meelood baa lagu koobay marka halkaas waxa lagu diliyaa inaysan halkaas ka jirin tartan siyaasadeed yaa marka shaati oo la tolanayo waa taas way marka waxaan saddex xisbi kaliya oo baa ka shaqeyn doona wadanka waxa la dhahayo rabshay dagaal bakeen doonta yaa laakiin waxa la yaab kale waxa weeye isla waxaan dastuurku sheega oo ku qoran tahay hadii ay dhibaato waxaan keenayso oo arrimaha siyaasadda dhibaato ka imaanayso hal joojiyo ku qoran soo jeedaan qoran tahay qodobka 46 qaybta 3 soo jeedaan nidaamka matalaada waa inuu ahaado mid ka hortagi kara qalalaase ka dhalan kara tartamada siyaasadeed oo natiijooyin doorashada yaa taaba kan ba midna waxa la dhahay saddex xisbi kaliya wadanka shaqeynaya midna waxa la dhahayaa wax rabsho iyo dagaal keenaya yaa la sameeyay marka xagee la yiraahdo dadyo wali soo waxaan marka kuwan golaha shacabka waxa way ma fakarayaan waxa way hunguri baa muuqata leh yaa laakiin xilka qabanayaan waxaas ma kala jecla lacag baa ay wadana haddana waxaan waxa weeye wax ku tusinaysaa dadkan in oo loo dhiibay xil aysan istaahilin yaa marka waxaan waxa weeye cilmi looma laha aqlina looma laha marka waxa weeye lama fikirayo dadkan yaa marka waa kan ayagoo cuday wixii marka waxa ugu weyn oo doqonnimo oo loo fikirin waa qodobka 49aad way marka qodobka 49aad maxaa la dhahay awood baarlamaanka leeyihiin bay iska soo wareejiyeen Xasan Sheekh baa lagu wareejiyay yaa marka taas doqonnimo way marka wax la iska dhahay maaka waxa ku qoran tahay qodobka 49aad soo jeedaan marka soo jeedaan qodobka 49aad qaybta koowaad b soo jeedaan marka la dhahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu noqon doonaa mid oo magacaabi kara ra'iisul wasaaraha ama xilka ka qaadi karo yaa marka saas waxa way waa khalad way marka baarlamaanka waxaan golaha shacabka waxa way doqomo way waxa way awoodoodii bindis ka soo wareejiyeen wuxuu wareejiyeen madaxweynaha yaa dad la soo gatay inay yihiin halkaas baa ka muuqata marka waxa way normal ahaan markii oo la ceyrinayo prime ministerka waxa way baarlamaanka hawshiisa way marka adduunka dhan bay aadasaas ka tahay xitaa France oo ah si Soomaaliya kale siyaasadda isku qaab yihiin taas waxa way waxa shaqo ku leh baarlamaanka yaa laakiin meeshaan waxa way waxa ku tusinaysaa dadkan
waxa weeye waa lagu soo khaldaa markii mas'uuliyadda loo dhiibanayay marka taas waxay ku tusaysaa qabyaalad siyaasad qabyaalad ku dhisan khasaareed inay soo dadweynaha qabaan Soomaaliya waxa weeye qabyaalad iska daa waa la kari waay Soomaaliya waa kana natiijadeedii marka waa kana marka saan oo kale waa problem aad iyo aad u weyn sababtoo ah madaxweynihii baa awoodii ku ekaanaysa yaa marka saas khalad weey marka hadda ka soo qaad maanta normal ahaan dawlad saas baagtay qaabkaas baa leedahay madaxweyne waa kaasa golaha shacabka kaasa wasiirooyin waa kaasa maxkamadda waa kaasa marka awoodii dawladda waa la qaybiyay oo qolaba in baa loo dhiibay sababtoo waxa la rabaa meeshan in oo hal qof wixii ku koobnaan oo marka qofkaas uu dictatornimo uu ku kicin oo dadkii ku xadgudbin marka sidaas darteed baa awoodii dawladnimadii loo qaybiyay oo dadkii loogu dhiibay laakiin maanta sis inta ka jirta iyo sida waxaan dastuurku sheega loo keenay daaway Xasan Sheekh walba gacanta kula jira waa ka hawshiisii oo kaas halkaas gacanta kula jira intana gacanba kula jira inta gacanba kula jira inta gacanba kula jira marka taas waa aad halis u tahay yaa marka hadii saan la ogolaanayo maxaa siyad bare loo ceyrsanay oo wadankii loo burburinay waxaan dastuurku sheega khaladaad kala khaladaad badan marka qodobooyinka qaarkood oo halkaas lagu sheegay waa wax stupid way aan laga soo fikirin wax laga soo fikira ma wax oo qof professional soo qoray ma yaa wax la iska dhaay ma waa ka wala tusay idinka ku arka soo jeeda hadda qodobka 3 qaybta koobaad inta ku qoran qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu noolaado yaa qof kasta xaq miyuu leeyahay in uu noolaado kuwa dambiyada galay oo toogasho lagu xukumay xaq u leeyahay in noolaadaan yaa marka waxa weeye dad professional wax soo qoreen waxa weeye waa reer Xasan baa contract lagu siiyay malana kana haddana inta iskaliya ma ahayn haddana waxa laga sheekinayaa reer galbeedka inay waxaan ka dambeeyaan sababtoo reer galbeedka ayaga toogasho ma sameeyaan yaa marka taas waxa weeye xitaa lagu tuusin inay saas ay noqon karto in oo shar waxaan dastuurku sheegay inay wixii si qarsoodi ayagana waxooda hoos u soo gashadeen soo ogtiin maanta wadankii dhibaatooyin fara badan baa ka jira yaa waxyaalo badan baa laga hadli karaa yaa waxaan dastuurku sheegay waxa weeye waxaan macna lahayn oo lagu talagelin oo booskeedii aan hayn baa laga hadlayaa yaa hadda ka soo qaad qodobka 20 gudniinka gabdhaha baa laga hadlayaa yaa marka waxa weeye dad xishood ma dadka waxaan dadka ugu sheegay marka qodobka 6 daaw firstaan waxa ku jira qayb oo qosol badan oo la yaab leh yaa wax la iska dhahay ma aawka nala firsada waxa qodobka 6 qaybta 5 oo page-ka 12 ku qoran waxa ku qoran dawlad goboleedyada waxay yeelan karaan calan iyo astaan u gaar ah balse ma yeelan karaan hees astaameed ay gaar ah yaa calan iyo astaan waa yeelan kartaan laakiin hees ma yeelan kartaan yaa ruuxa arka wax sidoo soo marka waxaan dastuurku sheegaa waxa la dhahayaa Soomaaliya inay tahay wadan jamhuuriyad oo dimuqraadi ah yaa wax la iska dhamaa waa kan qodobka koowaad qaybta labaad ku qoray bal hadduu osaas yahay hadday run ka tahay dastuurkan maxay dadku horkeeni waayeen yaa marka been baalkaas ugu bilaabsan odayga been islaamkaalkaas ugu bilaabsan jidaan marka taasna waxay shak ka keenaysaa inay doorasho dhici dooninba yaa haddii dhacdana inaysan noqonayn mid xalaal ah marka taas waxa waa arin in ku talagashaan ah way marka dastuur dadkaas kale yaa madaxweyne karaan xisbi karaan way imaadaan way tagaan waxaan tagayn waxa way dadkii iyo dastuurkii iyo dhulkii yaa marka dastuurkaas waxa weeye maanta uu Xasan Sheekh meel ku soo qorqorta waxa weeye oo asaga iyo 5 qof oo baahan oo ag fadhida meelaha ku soo sameysteen sharci ma sharci wuxuu noqon karaa markii referendum la soo marsiyo oo dadka la horkeeno oo dadku codayaan yaa sida dastuurka hore Soomaaliya soo jeedaan waa loo soo codeeyay natiijadeedu waa taas yaa marka saas kale in la soo marsiyahay processkan haddana inta iskale ma xitaa dastuurkan waxa weeye wuxuu hal qof leeyahay maaha oo wax dad badan leeyihiin way marka dadka dhan in la soo hordhigahay qolaba in la soo hordhigo oo maxaa ka qabtaan la dhaho marka laga shiro wixii oo marka laga gorgortamo odayaal barnaamijka laga soo ku dhamaado marka aan dhahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isa aragti dambe